barnaamijka isxilqaan oo ah dalkaaga dib u dhiso oo lagu dhisayo xarumaha burbursan ee dawladda ayaa waxaa shaqaalaha wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo si weyn isugu soo diyaariyay kaltanka 16aad ee barnaamijka isxilqaan ugu qayb qaatay dib u dhiska iyo dayactirka ka soconaya guriga hooyooyinka ee loo bixiyay guriga maama baxsan shaqaalaha wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo uu hogaaminayo wasiiru dawlaha wasaaraddaasi ayaa waxa ay ka fuliyeen shaqo aad u adag taasoo ay ku nadiifinayeen qashinka yiilay halkaasi agaasimaha barnaamijka isxilqaan Maryan Aadan Amiin ayaa ku amaantay shaqaalaha dawladda doorka ay ka qaateen dib u dhiska dalka iyadoo tilmaantay in barnaamijka isxilqaan uu ku socdo si dardar leh waxaan joognaa gurigii maama Sayn Cali Baxsan guriga hooyooyinka waxaa socdo si xoolo u socdo dhismihii wadanka waxaa maanta kaltanka lahaay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ah laf dhabarta shaqadan waxaa nagala soo qayb galay wasiirkii u horeeyay wasiirada cusub ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisa cusub wasiir Saalax wasiiru dawlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aad u mahadsan yahay maadaama uu noqdo hormuudkii wasiirada nagala soo qayb galay shaqadan isxilqaan qaybteed wareegeeda 16aad waxaan leeyahay wasiir adiga shaqaalaha iyo wasaaradda waa mahadsantiin waxaan kaloo qaybta group isxilqaan hadaan aan jecelnahay meelihii aan dhisnay inay shaqeeyaan hooyada markay caruur dhasho waxay ku faraxdaan markuu socdo uu dhaqaaqo uu wax barto oo weynaado oo ayada anfaco tiyaatarka waa maqlaysiin dananka ka dhacaayo iyo hawsha ka socoto iyo wanaaga iyo quruxda ka muuqato madxafka sidoo kale hawshiisu way socotaa maktabadana insha Allah mar dhow ay bilaabanaysaa halkan iyo meelo kalena waa insha Allah waa dhameynayna sidii ugu taaganahay sidii alasay u soo kalana sidii qaarkeen habeenkii u dhaxbaryaan oo joodariyo u dhigtaan ayagoo alaab ilaalinayo hawlna wado wasiiru dawlaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Axmed Qaasim ayaa ka warbixiyay shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada doorka ay ka qaateen dib u dhiska dalka isagoo ku booriyay inay sii kordhiyaan dadaalka iyo howlaha shaqo ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed runtii waxa la dhisay tiyaatarka qaranka la dhisay maktabadda qaranka madxafka la dhisay waxa la dhisay استادي مقدشة على الرسي بس كان وعوقب سال الرسي اسحلقان واي بس كان وعوقب ذاتي ورهين ثان اسحلقان واي اسكان اوكيني كنتي سدعي توانكي اكتوبر لو كوني سديدي توانكي ايام ururka shaqaalaha ay bilaabeen iyo waxaan u maleynaa I think tii 16aad inay tahay Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho